xusbi xaakinka talada dalka iyo kulmiye ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga la qabanayo shirweynihii afraad ee xusbi xaakinka talada dalka iyo kulmiye. Gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha afraad Cabdikariin Axmed Xinif iyo sidoo kale xubno kale oo ka mid ah guddidaasi waxay sheegeen iyagoo raacaya xeerka xusbiga waafajinayana waqtiga doorashada la qabanayo 4 bisha tobnaad ee sanadkani uu shirweynuhu xusbiga kulmiye ka qabsoomi doono gudaha magaalada Hargeysa. Waxaana yiraahdeen waxaanu saakaydan ku yeernay annagoo raacayna xeerka xisbigayaga waafajinayna waqtiga lagu dhawaaqay shirweynaha bariyaha miyada shirki ku dhawaaqeen bay lahaayeen imkaan ku dhawaaqayna halkan waxa taagan guddida qabanqaabada qayb ka mid ah shirweynaha afraad oo xisbiga kulmiye waana shirweynihii afraad waxaan filayaa inaanu nahay xisbiga uun 4 shir ama 3 soo qabsaday kii afraadna imanka u diyaar garoobaya waana de wax sharci ah oo ama sharci qaran ha noqoto oo xeer fuudin oo amrayo ama kaayaga xisbigaba ha noqoto xiroosaadka xisbiga ha noqoto ayaa waxay inagu waajibinayaan in shirarka xisbiyada la qabto 5 sanadoodba hal mar. dhinaca kale markaad ka eegto annaga waxaad moodaa saan u qabanno 5 sanadoodba hal mar inuu ka yar yahay waayo marka xisbigu yahay 18 jir ee 4 shir uu yahay waa 4 sanadood iyo barba shir baanu qabanay marka waanu buuxinay annagu runtii shuruucdii ka xisbiga ha noqoto ka guud ee xisbiyada qaranka wada dhaxeeya ha noqoto. waxaanu maanta halka ka dhawaaqaynaa in xisbiga kulmiye uu qabsan doono shirweynihiisii afraad bisha Oktoobar ee fooda inagu soo haysa bisha tobnaad ee sanadka 2020 afarteeda 5teeda iyo 6teeda haddii ilaahay ka dhigo oo de qadarka ilaahayna gaarsiiyo ku talagalka xisbigu maanta aan ku dhawaaqaynaa waa sidaa weeye marka waxaan u diraynaa oo ugu baaqaynaa xubnihii xisbiga golihii dhexe xisbiga ergooyinka shirweynaha iman doona inay isu diyaariyaan u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada shirka waxaanu ka dhici doonaa caasimadda jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa ayuu ka dhici doonaa haddii ilaahay ka dhigo ku talagalkayga waa 3 maalmood inuu socdo waa loo diyaar garoobayaa intaasuu baanu maanta idinku yeedhnay su'aalaha idin hayo oo aan ogahay laakiin hadda su'aalaha mar kalena weydiin doontaane Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa.